shacbiga karaamada iyo sharafta badan ee reer Somaliland maanta hadalkaygani wuxuu ku wajahan yahay dadka gobonimada iyo sharafta badan ee xariirta ah ee reer Burco. maanta idin la hadli maayo inaan madaxweynihii qaranka oo kaliya ahay oo baroordiiqda shacbigiisa kala qayb qaadanaya. waxaan idin la hadlayaa inaan ahay aabe ka murugaysan geerida iyo khasaaraha ku dhacay qarankiisa. waxaan ahay muwaadin ka damqanaya wixii ka dhacay iyo xanuunkii ka dhashay Burco shalayto. waxay naga geeriyooday 2 xubnood oo ka mid ah shacbiga Somaliland oo ay ahayd inaanay inaga bixin, hase yeeshee qofna saacadiisa oo dhimanayo cid baajin mayso. waxay naga dhaawacmay tiro fara badan oo shacbiga ah, ciidamada booliska iyo ciidamada qaranka. waxaan la qaybsanaynaa tiiraanyada iyo wixii ka dhacay Burco. waxaan u sheegayaa shacbiga Somaliland in wixii ka dhacay halkaas xukuumaddu ay baadhis ku samayn doonto, iyadoo aan cidna gaar loogu jeedin. ciddii ay ku caddaato inay ku lahaayeen lug kicintii dadweynaha iyo wixii ka dhacay Burco khasaare, waxaa la horkeeni doonaa cadaaladda. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu ku yidhi qur-aankiisa isagoo inoo digaya, ka digtoonaada warka sharwaduhu idiin keeno aydaan ku camal falin si aydaan hadhow isu qomamaynin. waxaan shacbiga reer Somaliland u sheegayaa iyo shacbiga reer Burcaba in dadka lagu kiciyey war beena oo aan jirin. taasina waxaynu ka baranaynaa inaynu ka digtoonaano wixii hadda ka dambeeya, inaynu beenta iyo wararka aan sugnayn ka fogaano si wixii maanta ka dhacay Burco aanay mar dambe inoogu soo noqon. waxaan ilaahay uga baryayaa dadka inaga dhaawacmayna inuu u boogadhayo oo caafimaad degdega siiyo. reer Burco waxaan ugu baaqayaa inay ilaashadaan midnimadooda, wadajirkooda, walaalnimadooda iyo isku duubnaantooda, si aanay uga hadhin shacbiga Somaliland ee maanta u hayaamay waxqabadka iyo horumarka. waxaan ugu baaqayaa inay nabadda ilaashadaan, inay midnimada ilaashadaan. waxaan u mahadnaqayaa guddiga nabadgelyada gobolka iyo odayaasha iyo waxgaradka Burco ee xalayto soo afjaray wixii ka dhacay Burco. xukuumad ahaan waxaanu u diray xalay saqadii dhexe annagoo siinayna ahamiyadda ay leedahay arrintani ka dhacday Burco. wafdi ballaadhan oo xukuumadda ka socda oo hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha. xukuumad ahaan waxaan isla waafaqnay in ay xukuumaddu waafaqdo go'aamadii lagu soo afjaray wixii ka dhacay Burco. waxaan amray in la sii daayo dhammaan dadkii la xidhay. waxaana xukuumaddu u wakiilatay fulinta qodobadii ay isla qaateen guddiga nabadgelyada gobolka iyo odayaashu wafdiga xukuumadda ee Burco hadda ku sugan. waxaan ilaahay ka baryayaa hawshaasi inay si nabada inoogu soo afjaranto. waxaanu ogsoonahay duruufta ay ku nool yihiin qoysaska saraakiisha inaga xidhan ee maxaabiista ah. xilka koowaad baanu iska saaray inaan soo dayno maxaabiista dhammaantood. in waanu ku guulaysano waa la socota. inta kalena waxa naga go-an aanu wadadeediina haynaa sidii loo sii dayn lahaa.